qisooyinka ugu cajiibsan dunida ee dhammaan kutubta diimaha lagu sheegay waa qisada Nuux calayhi salaam. Nebi Nuux calayhi salaam waa uu ka duwanaa dhammaan nebiyada. Xilligiisa waxaa dhulka ka dhacay halaag aad u weyn, waxaana la baabi'iyey cid walba ee gaal ahayd ee Nebi Nuux calayhi salaam beenisay. Dunida oo dhanna xilligaasi mawjad cusub iyo nolol cusub ayaa Nuux calayhi salaam kadib bilaabatay. Markii wiilashii Qaabiil ay fasahaadeen, dhagaysan waayeen Idriis calayhi salaam, waxa ay bilaabeen in dhulka meel walba ay fasahaadiyaan. Waxaaba ugu darnayd in ay samaysteen sanamyo u qaas ah oo iyaga keliya ay caabudaan. Idriis calayhi salaam naftiisa ayay ku bilaabeen in ilaah ay ka dhigtaan. Qoomka xilligani noolaa waxyaabaha cajiibka ay ku ahaayeen waa in qof walba ee saalix ah oo wanaagsan ay arkaan waxa ay ka dhigan jireen ilaah ay caabudaan. Ilaahyada sida qaaska dhexdooda isugu dardaarmi jireen waxa ay kala ahaayeen Wad, Suwaac, Yaquud, Yacuuq iyo Makr. Raggani waxay ahaan jireen ragga kuwoodii ugu wanaagsanaa ee xilliga dulmiga iyo qaladaadka dadkani ay samayn jireen ka wacdin jiray. Waxaa Ilaahay dhexdoodii uu ka dhex doortay mid saalix ah oo dadka kan ugu wanaagsanaa ee xilliga noolaa ka mid ah Nuux calayhi salaam, si uu dadkani warmoogayaasha ah ee baashaalka iyo xumaanta ku jira uga digo cadaabta daran ee sugaysa haddii qaladkani ay ku dhex socdaan. Sida kitaabka Qur'aanka uu leeyahay, innaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi an andir qowmaka min qablu an yaatiyahum cadaabun aliim. Nuux calayhi salaam markaas ayaa qoomkiisii uu ka dhex istaagay isaga oo dadka ku dhahayo, dadkeegiiyow ka joogsada sanamyadan, waxa keliya ilaah aad ka dhigataan oo cadaabudaan allaha keliga ah. Markaas ayaa kuwoodii ugu waaweynaa ee waxgaradka isku arkay ay dhaheen, Nuuxow, darajada aad sheeganaysa ee nebinimada ah qof gaaray kuuma aragno, waxaa tahay qof inaga mid ah oo bani aadam ah. Dadka ku raacay ee maanta hormuudkaad u tahayna waa dadka shacabka darajadii ugu liidatay, dadkii saboolka ahaa, dadka hoyga aanan haysan iyo dadkii reer baadiyaasha ah oo keliya ayaa ku raacay. Si kooban inaga waxaan kuu aragnaa beenaale darajo doon ah in aad tahay. Nuux calayhi salaam waxa uu ku yidhi, qoomkeegiyow sidaa ma aha, haddii aan xil ama jagadoon aan ahay waxaan idinka qaadi lahaa lacago, balse ma doonay anigu wax lacag ah, idinmana dhahayo waxaan ahay anigu qof malaga, mana idinku dhahayo waxaan hayaa qasaa'intii alle. Keliya waxaan idinka codsanayaa in aad iska jirtaan cadaabka daran ee soo socda. Waanadani Nuux calayhi salaam waa uu ku dhex joogtay qoomkiisa dhexdooda habeen iyo maalin, isaga oo habab kala duwan isticmaalaya. Waxa uu la shiray dadkoodii ugu waaweynaa Nuux calayhi salaam inta uu hal meel isugu keenay, waa uuna u wacdiyey sida ay uga haraan qaladaadka iyo xumaanta ay ku taagan yihiin. Way diideen, wayna ku gacan seereen in ay raacaan qoomkani iyaga hortooda, maadaama aysan jirin ummad kale oo la halaagay. Waxa ay aamin ka noqdeen in aanan la ciqaabi doonin. Markii ay ku gacan seereen Nuux calayhi salaam, waxa uu bilaabay in dadka oo dhan saaxiibo qarsoodi ah uu ka dhigto, isaga oo xaqa ugu baaqayo. Arrintii marka dadka oo dhan ay ka war heleen waxa uu sheegayo, waxa ay ku faaftay Ciraaq oo dhan. Markaas ayay isku baaqbaaqeen dadkii oo dhan iyaga oo dhahayo, ha dhagaysanina Nuux warkiisa, haddii aad meel fadhisaan uu imaadana dhagaha faraha ka gashta, kana taga goobta uu joogo. Sidii ayayna sameeyeen, sida kitaabka Qur'aanka lagu sheegay, jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asaruu wastakbaru istikbaara. Xilliga dhulka waxaa ka dhacay abaaro xoog badan, geeduhu waa ay soo bixi waayeen, dadkii kibir ka badnaa ee nimcada haystay waxa ay noqdeen kuwo fuqara ah. Nuux calayhi salaam waxa uu ku yidhi, tani waa ciqaabta alle, haddii aad i rumaysaan kana soo laabataan shirkiga, waxa uu Eebbe idin soo dejin doonaa roob, nimcada aad haysateenna waa la idin siyaadin doonaa. Sidaa haddii la idin sameeyo, maxaad ku diidaysaan inaad alle rumaysaan? kolkani waxa ay ku dhaheen, Nuuxow, adiga aad baad noola dooday xaqiiqdii, cadaabta aad mar walba inoogu hanjabto, bal inoo keen haddii aad run sheegayso. yaa Nuuxu qad jaadaltana fa aktarta jidaalana faatina bima taciduna in kunta min as-saadiqiin. Nuux calayhi salaam waxa uu ku yidhi, qoomkeegiyow, anigu cadaab ma keeni karo, gacanna kuma hayo cadaab, ee keliya waxaan doonayaa in xumaanta aan idinka reebo. Maxaa idinku samayn karaa haddii aan dhinac walba idinkaga nasteexeeyo? Ma qaadanaysaan waanadeeda. Qoomkii Nuux calayhi salaam sidaa ayay daa'imeen, xumaantooda iyo sanam caabudistooduna waa ay sii wateen. Xilligani Nuux calayhi salaam waxaa raacay oo keliya tiro aad u yar oo bulshada dhexdeeda marka loo fiiriyo aan badnayn.
dadkani waxa ay ku noolaayeen Ciraaq waxaana la oran jiray reer Banu Nasiib. magaalada gaar ahaan ay ku noolaayeenna waa magaalo Shuurbak loo yaqaanay. magaaladani wax webi ah ama bad oo ku yaalay ma aysan jirin, dadka oo dhanna abaaro xoogan ayaa hayay. markaas ayaa Nuux calayhi salaam waxaa la faray in doon uu sameeyo. Jibriil calayhi salaam ayaana loo soo diray si uu uga caawiyo habka doonta loo sameeyo. markii ay qoomkii arkeen Nuux calayhi salaam oo alwaax iyo biro isku dhajinay si uu doon u samaysto, inta ay isu yeeraan ayay ku qosli jireen iyaga oo dhahaya, bal eega shalay wacdi iyo ciqaab ayaa imaan doonta ayuu sheegaya. markii uu arkay in mashruuciisa wacdinta aysan soconayn, howlihii faryaamanimada alwaax kabin ayuu bilaabay. aad ayaa loogu qoslay Nuux calayhi salaam inta uu doonta uu sameynayay. waxa kale oo ay lahaayeen bal caqli xumadooda eeg, doon haddii uu sameynayo xitaa waxaa laga sameeyaa meel webi ama bad ah, balse magaalo qaleel ah oo xitaa roob aan ka di'in ayuu doon ka sameynayaa. Nuux calayhi salaam waxa uu yidhi, in taskharuu minna fa innaa naskharu minkum kamaa taskharuun. waadna ogaan doontaan qofka cadaabka wax duleeyo uu imaado. qosolkoodii ayay iska sii wateen. xilligani Nuux calayhi salaam heerka dadka beeniyey xitaa wiilashii uu dhalay waa ay beeniyeen. dadka ka soo horjeeda ayay ka mid noqdeen, balse qaar ka mid ah wiilashiisa ayaa rumaysay. arrintani in qoyskiisa ugu dhowaa sida xaaskiisa iyo wiilashiisa Nuux calayhi salaam ay beeniyeen qoomkii gaalada ahaa ee ka soo horjeegay waa waxyaabaha gaalnimadoodu in ay daa'imaan ku caawiyey. sidee ayaa run ugu qaadanaan qof xaaskiisa iyo canuga uu dhalay xitaa warku uu sheegay aanan rumayn? Nuux calayhi salaam doonidii markii uu sameeyey ayaa alle waxa uu faray in dhulka jinsi walba ama nooc walba ee noola ah laba inuu doonta ka saaro. doontani ama markabkani Nuux calayhi salaam waxaa la saaray nooc walba ee xayawaana labadiisa. waxaana sidoo kale la faray in doonta ay soo raacaan dadkii rumeeyey. markaas ayaa inta aan doonta bisinka alle lagu kicin ayaa Nuux calayhi salaam qoomkiisa mar kale uu dhawaaqay. way sii socotaa, waa inoo qaybta xigta iyo habeen dambe.